لا iyo warsangeli baan maanta Soomaali uga baxayna iyo leelkas intaas Soomaali maanta naga saaray qodobkaas waa qodobkii ugu dambeeyay weey ninkaana maanta hadlay ninkaana horta wuxuu ka hadlay intaan u imaanba iyo ninku ka hadlay guuleys saxbar intaan u imaan warninkani waa dani seedigiis dani walaashiisu qaba silbu siyaasad ku soo galay baalkiisa Allah u barakeey hadda kadib Allah u barakeey wuxuu ku leeyahay waa qiiraysan yahay wuxuu ku leeyahay macdanta Puntland baa la gadayaa deetana walaalayaal markii macdanta la gado dawladda macdanta idin gadaysa war dawladda meeshan ka jirta maxay tahay dawladdu waa adiga iyo seediga iyo gabadha walaa dani walaashiisu qabtid miyaa dawlad u taqaana soo kuwan shacabkii qarda qaylinayaan oo ay ka qaylinayaan geeled Saciid Cabdullaahi dani naagtiisu leedahay iyo shirkadda dani naagtiisu ay furtay caanaha oo dhaho el haralda el hare 10,000 oo dhul ah ba 2,000 oo geel lagu fasaxay waa magaalada qarda oo dani ka soo jeeday wi ba cadaalad darro ka cabanayso oo ka cabanaysa dani bin Xamayti iyo naagtiisa Jawaahir bin Xamayti bis ijaaba bin Xamayti walda be ka cabanaysa wuxuu ku leeyahay iyo kuwaas oo dadkii geeli loo deelayay wuxuu ku leeyahay dana macdantiina ku soo dara oo ka hadlinayna macdanta siyaasiyiinta reer Puntland ee mucaaradka war Yacquub siyaasi aan ahayn oo maantayto ninkaas iyo reerkaas la go'ay shirkadaas miya aragteen inta kala Soomaa waa nima kursigan doonaya oo aragtidooda ama niman aan doonaynba oo laakiin aragtidooda shacabka Puntland in meel khatar ay ku socdaan sheegay uu soo jawaabaya waa dani seedigiis hiidka aad u gaaray isaga iskeenay wakaasa Puntland marka shirkada u gacan gashay wuxuu rabaa inuu qariyo supermarketka Baraar inuu wiilka Saciid Cabdullaahi dani leeyahay guriyihii gaagabnaa ee Kamaaludiin in madaxtooyadii budgetkeedii lagu bixiyo oo dawladdu degan tahay Liibaan dani bin Xamayti uu leeyahay waxa uu diiday yahay kan iyo kuwa kale oo la mid ah in agaasimayaal dekada haystaan sawirka fiiriye mid ku dhex jiro oo la yiraahdo Mawlid Jarmalka waa aan live ka bilaabay anoo kam sakuurada ka soo gala live marxaanti ilaahay meega ahay oo magaca Samsam ninkeeda wata marxaanti meega waagaas uu ila shaqeyn jiray thumma wallahi ولا يقرأ ولا يكتب حتى أفشر من ما يقانو شقة على جي ما أنت ومدح مشاريع وورلد بانك دني ولا شيء سوقها اسمه ياشي شركة دي بتلان كيني تري الواحدة هي بركة شركة بالوريك تلو هاري الصون أول كدني وليه هي ما عندك وقت قانون وحسكري حسن دني بأسكري سعيد عبد الله دني ويلكس أسكري هاري الصون حسن دني بأسكري وردت نوع عسى وقع عنقل شركة عادية حبس مدوشة كفر إلهي ولي أبوك قري بانقل نينك وجهه بيقول سرح بري وانين كترسن حسب النبض ينورل ورجع يواجه عيا كل جيم ويه حاسس الشيخ محمود سهيستين حبد إسلام عيا النبض ينورل اللي ما شاء الله ماني بسوده على فرماتشو يحاسس الشيخ بس ده دني سو هذا قلنا بإمارات وياهي ولي قلنا بوها سجى سياسي ما وقلنا بقلنا دريوي إكس إلا سجى يولاليه سيو فهم كان وضع ملحة شو وضع عليه وجه شو وضع أنا حشوني ويه مركا لبدأ إني إزدلي سجى نح أرضي بس وكيال الرري قولت مركا كادرين تقوى وين نبدأ نورلوي وصانقضي وحي وشاقي إن دالكار والشركات وقع عن قري شركة دواتاس ما أنت برناكس كنت مركا ونوشيقي وعصيده ولا إذا ماذا بنتلان قبلها بنتلان وقبا قبلها دني ولاش وقبا وسيل كذا كويري كرسي وكويري هذا وكفر مشاريع وسكان الضلنا وقبلها وقبا كوان تهريبه ما أركو ولاش هذا داوري بورها صارن يسمع متكسو قدو أبكر سكنك هالكادك وويل المحا وغاروي هو بكود جوليس حبرا بحيه رصاصته جوليس بحيه يا محمد وغار بحيه بطلان مصيصو قركي يوساريين قبلها ريب بطلان وي بطلان مشاركة مقاطعان بانا هدلي كي أن علمسكا وحوار ديمان نعسكا مدحا وجه شوبادا علي علمسكا وحوار ديمان السيس كده في دنيا كرسي وكفر دي وبعض البحانتا اسمان محمود ودنبا وحوار ديمان كرسيكا ما شاء الله علمسكا بركاسا مات وجهي تلقى وريا قبلها ريب بطلانو وروحاس وريا أدو مكا قرافت وحاسو كل وريا مكو سومرت إلهي بيدي كوكو داري بحالا يعقوب حناقسية ورمحال حناقسان واي وحانا شعب كبوتنا وقع عن قلاي ورنولش النوع أنا كنا نهاي وربالآدم مياه نهاي مس حيوان بانا ثم والله يورتا رقص ما يعرق دني بس رقوا أسعركيا ولي حلقة هو رسا بوتلاني بعضه دني رقوا أسعركيا لكن واحد نوع عاسان ما أنت إدين شيء هورين إدين كوكو شيء ما أنت أنا الحقيقة كتاجنا هاي أو يعقوب waxa uu ka cabanay Ciise ahayn dhuruq Yacquub hala siyaa dhuruq dadani waa la socdo waa keeni jiray dhuruqayeen laakiin gaajo gobonimo leh
ولا درك قلني ماله دارو فمل وما شقين كرهاد أنا قضي بطلع لي جبل أنتو ولا عليه كدبنا مسكح هذا إسهارا أنا قبل كبنادر يسوع اللي ما كره هذه عليه وجرته أنا مسكح وسقيسن أو حن أسكح في حماده لكن ما قلبي حبي قلبي جاي ومحمى ومدح حليسن أذكرت هذا وأسكح أخرستا قوليس على برا عنك معلنك القرآن كيسوع بريا أرضي فهمت بدن بارها ويدي والله أرضي اللي خلدي كرو والله حلو أسوي كذا راحين وحنا مركا كجبنا يا مركا كل يا سياسيين أنت معارض كبطلة وربطنا معارض بلا معارض مرة قوليس على برا وسود جاي وعي تركلين وواحد به معارض ما قوليس على برا ودحل سوق كرسي على سكال وسوقيا وصي على ميتاري سكال سياسيين تكله قال حمركم قد كو دبدس كاري عيسى محمود كوسي على ميتاري هذا كل شيء جاي لا كرسي فدي مسا ثم والله رجوا صار كيسان وانا ارتينا وحنا اللي تكون داون قولنا ويلاش يسعل مسكات كل منايا بوتلان شرفت الدفاعيه قبلها بوتلان دفاعيه قفك يا وجهي لاستيق قال ادي سعيد عبد الله دري درجه كما ربان مشارنا هذا اذا كما قاتان waxaan mishaarkooda bixiya isla jifida ay Ciise Maxamed ka yimid bixis xataa Ciise Maxamed kala lama bixiyo ta halka ay dhig abaal iyo ka sugaya de shacabka Puntland ka sugaya meel kasto ay degan yihiin shacabka daarood ba ka sugaya shacabka Soomaaliyeed ay u jeedeen in nimankaas xaqiiq iyo xaq u dagaalamayaan haddana aamusan yihiin ay safaanin waxbaan xoreynay meel baan qabanay guuta labaad oo dhan yeeyay guuta labaad oo dhan qalyarayo soo maxaa uga arma marka aamusta marka waxa la been ba fakatay run ma gaadho ka aamuseen anaga wiilashaas حق بوتلان يدي قدرن كوبحي أنا جاشين إذن كان يعس لشيء ذاتي أحب كلا أقول حشوني وريا عيسى سيخ بوتلان شعبور بوتلان معها وريا بوتلان إرجابا معها وريا صول نمان هرتي وما أنت معمول هلا معها ما عادت كله ارتاجن تامرك قالوا فهم وكاسا شركة هذه شيء جي واتمات برناكس كنت هذا كل هذا معلنت هذا قال إنه حمر بكوا والحمر رمص عدان ده كان على شط وشقة سالب كان سدين كولومبيانا ولما نكي السودان وقابل سنة أو أنت تكا ما أنت بوساس تشوجه يو صور الله صوران كولومبيان كي ميديا صوري سوكو أركيسين وبركة هل جالس بوتا أي مرة يساعد أنا وجد إن الله صرفته وأنا لقيته أنا قدر ماي ولا ماشي أنا إذا كفى كان ماي قرنا أنا كقيل لي سادة oo Puntland oo dhanba maanta isbitaal lahayn oo caafimaad jirin oo ciidamada mishaar qaadan waxa anaga sakin qabanan way waxaan dul istaagaya qodobka ah aragtida konfederaal waxa way macnaheeda waxaan ka go'aynaa Soomaali uga baxaynaa hawiye la Soomaali uga baxaynaa markii laga tago dawladda anaga waa tolkeen iyo warsangeli waa tolkeen leelkasan waa tolkeen ana umada u cadeynay waxa weeye hawiye waxaan uga baxaynaa Soomaali darteed maadaama hawiye uu naga adkaaday siyaasadii beerka dhulka inoo dhigay دنت الصومالي وعفية وأنا قبتين كوب كوقاضي ومن تصدن شقة هذا كنت كرسي فدي ما دام وقبتيه هوية أنا وما صيرنا يا صومالي كبحنارنا أردت إنه عاصي مركز تريدولي دي بتلا وقضية SSDF أنا كمان الله ما معنى SSDF شلا تنزل بتلا كويسة شعبور وعكس هذا يضو ما عرفت والله الكسر حبك ما قصي SSDF ما يهين نما كان ما تقول بانتي ما ملكوا ديين حبك ما قصي SSDF ما يهين ورسنجري دول كيسوا حكى عليه أرجع وحبك ما قصيان قبل كبري نمك الدجني دش شايو قبيلة ذكر واجع أنا هين يجرا حبك ما قصيان حوق بنكو قبصرينا عافمات كي نرش بالعادة ماشي أوه سان كتاجنا أركتي أقول لي SDF وسوي هالجن واحد هالجن كم حانكو كان شو مني ما وحنا ناكو كان ما جرانس هالجن SDF ولي أنا مركان عيسى محمود هاي دتك وبدنا الدول السياد برا الله يسمع أنا سيد كإلهي تالي سأل عبد الله بغداد ولي أنا هالله يمارت إن دتك كجوب سنة كل شيء إن ماشي واحد يقول له يحيى كربير iyo tuulo jalamiya dhulkaas ana degan Ciise Maxamuud nugaal weeye dadka la duqeynay ee la leeynay barbadan ku socday ana Ciise Maxamuud ah askarta ugu badan SDF gudoomiyaha ugu cimri dheeraan anu ah aragti khaldan bay ahay oo cadiifad ay inoo geysay tiiba marka maanta waxa la boorka laga jafay hadana asaaq muxuu ku keenay inuu Soomaali ka go'o waa kaasay marna al-shabaab ka ah marna Soomaaliland sheeganay ma kuwaas ma ku qoys qaadan weeyday waa kaasa marka Puntland ay idin sheegi jiray inaan meesha wax aqliya jirin hadda waa aragtida konfederaal baan qaadan aniga nugaal baan degana de mar rabo mudug barina mar rabo barina aniga ay mar rabto ala aragtida suuqa ay heen karta aragtida Puntland kadibna Soomaali ku raadin war waxaan inta miya been ka sheeg marka qabyaaladu waa basal federalismku waa basal waxa soo in jamhuuriyad la raadiyo qaran la raadiyo midnimo Soomaaliyeed in la raadiyo wada jir iyo walaalnimo walaalka xun hadaa ka tagto oo walaal la'aan baa kugu dhacaysa waxa faa'iido ma kan xunna ka hayso kan aan wax maqlay soo jiid
meeshuu ku fiican yahay u isticmaal qof wada xun ma jira ilaahay qof wada xun ma abuurin laakiin waxbaa lagu kala duwanaan karaa wataas dowladdii marka muuse waa war jeclo waa kaasa waa idiin sheegaya waa idinkugu celinaya afka shacabka puntland baa ku hadlaya aragtidaas noocaasa dowlad fashilantay inaad tihiin bay caddaynaysa waxa idala qabna ma jirto walaalayaalow qoyskaas iyo shirkadaas ee puntland u gacan gashay waxa ay ka shaqeynayso waxa weeye 5 sano inay dhaleel wax isaga cunto dadka xasan sheekh intuu caadi nooga adkaaday oo naagaystay oo jilbaha dhulka noo dhigay uu dhoog istella ku sameeyay puntland dhameed warqadeeda caalamka ma akhriyo dhuub iyo dharar buu isticmaalay meel walba ka soo xiray wiilka ra'iisul wasaare xamza ah maanta kursiga ay helay nimanka ogaadeen baa qalbadu naga raac maanta dhulbaanta noogu darsamay leel ka gacan kuma hayno dashiisha ma soo dhaweyn ilaan taagana suuqley Soomaaliya ka go'an maxaa Soomaaliya ka go'an anaga ila taagan qadeembe maba aanu qadeembe maxaa go'naaba raallo cid kula go'aysana male aragtidaana kuwa Puntland first la baxay diyaaradaha la keenay halkan la keenay diyaaradaha macdantay guraan walaal macdan bay guraan shishay aad u shaqeysaan waxaasna dad cid la qabto male dadka reer Puntland inta samacaan oo dulqaadku ka dhamaan mood ka gala ila leeyahay mood gal Soomaaliya haysti mood ka gala intaas aanu tara idin sila dadka reer Puntland waa fahmeen Yacquub shay kaliya shalay mucaarada maanta doontiisu buuxda waxa la wallahi Yacquub baaragtaan iyo caafimaad ahaan ugu fiyow anu deeludiina waa nin ilaahay ka furtay maahay ilaahay abaal badan bi ugu leeyahay ajacay ilaahay adduunka ilaahay baa ugu jeclaa anu laakiin bil aadan igala dhaxay nin fahmi karaana ixtiraamna laga helayo aad baa isaan saaxiib barnaamijkan inta kulma doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala